maamulka degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa warbaahinta u soo bandhigay in ka badan 200 oo caruur ah oo la sheegay inay ka soo carareen shabaabka heesta deegaanada Baghdad, Dar es Salaam, Wargaadhi, Masaajid Cali Gaduud, Maxamed Saciid, Nuur Dugle oo dhamaantood ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoona caruurtani ay hoy ka dhigteen masaajidda degmada Cadale waxaana sidoo kale caruurtani lagu arkayaa xaafadaha magaalada Cadale iyagoo koox u socda halkaasi gudoomiyaha maamulka degmada Cadale Muuse Maxamed Kaliil ayaa sheegay in caruurtani ay maalin walba soo gaaraan degmada Cadale dadkan waxaan ka waraynaa ayeen badhabtiba dadka ubadkii loo rabay in loo qaado dagaalada dadkoodii ayaga isma raaci karaan dadkii meelihii jiraan ubadkana jidka lagu soo diray si loo amaaneeyo midka aqalkan oo soo wado tiradan maalin la aad inta arkaysiin maalin la waa hadii intan degan qariyada yar arkaysiin maalin la inta soo dunto ma sii jiraysa nolosha wasbarka hadda masaajidii jiftaan wali waxa ka badan tirada guryaha eelka la gashay tirada waa inta masaajidka ku xiraysan waxaan codsanaynaa ballan ku deeqa bixiyaasha hay'adaha deeqa bixiya laga bilaabo hay'adahaas maamul goboleedkan kan gobolka Shabeellaha Dhexe dawladda dhexe arrintan inay aragto wax laga qabto haddii ay nala arkaan waxa jirta waxaan ugu baaqayaa taliska militariga Soomaaliya kuwa amisom iyo hay'adaha nabadgelyo dhamaanba inay iska sameeyaan badbaado inay sameeyaan dadkan loo gudbo markay jidka waxa laga yaabaa hadda boqolaal soo taal ninkii laga cararayo meeshii uu joogo laga dhaqaajiyo yani mujtamaca kunti waa sal dheerta meesha dhulkan waa sal dheer xildhibaan Cali Saciid Sheekh Maxamed oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dhankiisa codsaday in caruurtani la gargaaro deegaanada ay ka soo kaceen sida ay noo sheegeen ka soo barkaceen waa Cali Gaduud in Wargaadhi Maxamed Saciid Nuur Dugle magaalooyinkaas ay noo sheegeen ilaa Guulan nacam waxa soo waday xaqiiqatan sida ay noo sheegeen arday wax baranaysa way inay mataqaan meesha wax ku baray meesha wax ka baran lahayna la yiri mataqaan qor qaade ee mataqaan dagaalamo waa ayaan darinteeda la eg isu bedel marka waxa loo baahan yahay dadkan in inta loo soo gurmado loo sameeyo dawladda dhexe ugu soo gurmato maamulada kala duwan soo gurmadaan ay u sameeyaan hoy iyo waxay cunaan iyo mataqaan iyagana ay la badbaadiyo ugu baaqaynaa amisom iyo dawladda dhexe si ay caruurtaas ugu barto deegaankooda in deegaankooda loo nabadeeyo oo deegaankooda loo inta la tago nabad looga sameeyo waxay caruurtu soo bixi maayaan hadii deegaankooda nabad looga dhigo meeshooda wax ku baranayaan ehelkooda meesha ku anfacayaan hadii la joogi waayo caruurtu waa soo tagay marka amisom iyo inta kale ma taqaana shaqadaas iska leh baaqaynaa inay dhulkaas Ismaa'il Abdulla Sabriye Universal TV Jawhar